حسبنا الله ونعم الوكيل موقالك لايك صار داوده سدد بدن او غارو ورني هدي أميركيغي هوري sidoo kale sheerta ha ka hilmaamin bal fiiri sacabka ka dhacaya robo waxa uu taagan yahay xilligii dadka aan gumaadi jiray sidaan oo kalena aan dadka u layn jiray amiir ayuu ii ahaa ninka uu leeyahay waa madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaam Axmed Midoobe haddaba waa maxay amniga aan raadinayno iyo waliba al-shabaabka lala diriraayo September oo kow ah waxa lala wadaagay dadka Soomaaliyeed in goobo target ah ururka argagixisada ah gumaadka ku haya shacabkeena Soomaaliyeed in ay mar kale damacsan yihiin khasaaro nafeed iyo mid hantiyadba ay gaarsiiyaan dadka Soomaaliyeed haddaba digniin aad u culus ayaa soo baxday sidoo kale waxa jira dhowr bartilmaameed kuwaasi oo isku jira jackpointiyo iyo waliba hoteelo adiga haddana daawanayaba inaad joogto ay dhici karto diyaaradaha internationalka ah ee Ethiopia Qatar iyo waliba Turkish Airlines waxa ay ka digeen in maalinkii qaraxa uu dhacayay musiibo weyn soo socoto diyaaradahaasi wadamada iska leh nimankooda sirdoonka ah waxa ay Soomaaliya ka helaan xog aad iyo aad u fara badan waana sababta keentay in qaraxi inta uu soo dhicinba ay joojiyaan duulimaadyadii ay ku imaan jireen magaalada caasimadda ah ee Muqdisho bismillaahir rahmaanir rahiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo adduunka aad ka joogtaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal marka hore waxaan ku bilaabaynaa in Ilaahay uu caafiyo dhammaan dadkii waxyeelada ay ka soo gaartay laba maalin ka hor qaraxi ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho khaasatan meel u dhow wasaaradda waxbarashada haddana magaceeda loo bixiyay 14 Oktoobar waa taqaaniin 5 sano ka hor qaraxan mid ka weyn ayaa ka dhacay isla goobtaasi haddaba sida barnaamijyadeena hore aad ku soo daawateenba hay'adda nabad sugidda qaranka markii magaceeda la soo gaabiyana loo yaqaan NISA waxa taliye ka ah xildhibaan Maxamed Salaad awal hadii hal bam kaliya la tuuro oo aysan xitaa qofna dilin isla markiiba waxa uu Facebook soo dhigi jiray isagoo dhaleeceynaya taliyihii isaga xilkan ugu horeeyay Salaad maanta waxba ma soo dhigo sidoo kalena kama hadlo dhibaatooyinka amni ee ka taagan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho dowladdan ka horeysay madaxweynahana uu ka ahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa ay inta badan ba sameyn jireen hadii qaraxyo ay dhacaan in ay dadka ku qanciyaan in amniga la sugi doono laakiin maanta xil waxa ka haya Soomaaliya wasiirna ah ninkii baneystay dhigi isla wadadan ka dhacay gaar ahaan xargaha iyo saamaha goob lagu magacaabo qaraxaasi waxa uu ahaa 2012 sidoo kale halkaasi waxa ku baaba'ay arday Soomaaliyeed oo scholarship imtixaan looga qaadayay si waxbarasho ay uga soo helaan dalka aan walaalaha nahay ee Turkiga qaraxaasi waxa ku baaba'ay boqolaal dhalinyaro ah sidoo kalena waxa in uu soo fariistay sheegtay afayeenkii hore ee al-shabaab Tar Abu Mansuur Robow haddana ah wasiirka awqaafta iyo diinta aniga ma fahmin sheekadan sidoo kalena qaraxa intuu uusan dhicin isaga iyo Axmed Midoobe oo ku kulmay goob ay iskugu yimaadeen mas'uuliyiin dawladda ka tirsan waxa ay ugu kaftameen hadallo dadka intiisa badan ku riday Rajabeel Tarobo waxa uu taagan yahay halkan waxaan ka salaamayaa amiirkaygii hore isagoo ula jeeda madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaam Axmed Midoobe waxa si fiican wax fiican sheegay ragii hadlay oo dhan gooni aan hadee amiirkaygii hore runtii wax fiican raalli ahaada wax fiican buu sheegay haddii la dhaho taariikhdaas laga daba tagayaa waa wax u baahan asfaar dhan in laga qoree wax kelimo iyo laba iyo saddex lagu sheegi karo ma ahane in aad u yar buu sheegay runtii laakiin cidii og baa og cidaan ogeyna ma ogo haddaba muuqaalkan aad daawateen waxa uu dadka Soomaaliyeed ku riday sida aan idin soo sheegay Rajabeel aad iyo aad u fara badan
maanta Soomaaliya waxaa xil ka haya ninkii Mooryaanka ahaa ee awal dadka gumaadi jiray iyo waliba kii sheegan jiray markii qaraxyo noocan oo kala ay ka dhacaan caasimadda iyo waliba dhammaan gobolada Soomaaliya. Dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hal ku dhig uu u yahay Soomaali heshiisa iyo dunida la heshiisa ilaa iyo hadda wax ka soo kordhay ma jiraan. markii laga reebo qabiilo iskood isku abaabulay oo la diriraya ururkan xagjirinta ah ee banaystay dhiiga kuwaasi oo kula jira dagaal goobihii ay degnaayeen kana haysteen. dad badan ayaa Xasan Sheekh ku amaanay laakiin waxa been ahayn in dawladdu aysan amarkeeda dagaaladaas uu ku bilaaban. beesha Xawaadle ee degta gobolka Hiiraan ayaa shacabka ka soo jeeda beeshaas waxa uu ka xanaaqay tuulooyin iyo waliba degmo ka tirsan Hiiraan in ururka Al-Shabaab ay gubeen hantidii dadka sidoo kalena ceelashiina ay ka duugeen. caradaasi waxa ay dhashay in dhammaan 90% dhulkii Hiiraan ay ka joogeen ururkan ay qabiilkaas iska bixiyaan. sidoo kale isla markiiba gurmud waxa ay ka heleen dhammaan qabiilada Soomaaliyeed iyo waliba dawladda oo markaasi isku sawir iyo waliba in ay credit ku hesho u tagtay. haddaba sida aad la wada socotiinba bishii hore ee hadda dhamaatay waxa qarax lagu dilay taliyihii booliska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole. qaraxaasi waxa ka dhashay shaki aad u fara badan. waxa la soo sheegayaaba in qaraxaasi goobta dad jooga ay ka dambeeyeen maxaa yeelay taliyaha oo dhur brikoor xilligaasi Faransa ka yimid marka uu airportka ka soo degtay isla markiiba waxa uu aaday halka uu ku geeriyoon doono. baabuurtiisa staafka oo ka horeysay iyo waliba kuwa ka gadaaleeyay jidka markii ay mareen ayuu qaraxa ku dhacay. ilaa ay hadda waxa jirta dood aad u weyn oo ka taagan isla markiiba dad ayaa taagan qaraxa laftirkiisa uu ahaa mid qorsheysan oo ay isla dawladdu ka dambayso. haddaba daawada waxaan idin hayaa 10 goobood oo digniin dadka laga siiyay in ay ka fogaadaan. lambarka koowaad waxa ku jira Hotel Ilad oo ku yaala degmada Cabdicasiis khaasatan xeebta Liido. labo waxa galay kilometer 4 checkpointiga ama goobta lambar 4 baabuurta lagu baaro. 3 waxa ku jira inkastoo ay hoteelo u badnaan doonaan Durbin Hotel. 5 waxa kamid ah eriyada dabka wadada u dhaxaysa lambar 4 ilaa Sayidka. 6 waxa ku jira xeebta Liido. sidoo kale 7 waxa ah Maka Al-Mukarrama oo ah jidka dheer ee isku xira isgoosyada kala ah kilometer 4 iyo waliba Maka Al-Mukarrama ilaa ka gaartid dalcadda Sayidka. 8 waxa ku jira dhammaan checkpointiyada ama filla Soomaaliya irdaha iyo waliba goobaha laga baaro dadka in ay iskaga dheeraadaan. 9 waxa ku jira checkpointiga Nisa ee baara baabuurta u gudbaysa xaruntaasi oo magaceeda la yiraahdo Habar Qadiijo. 10 waxa ku jira labada dhismo ee suuqa Xayaad waa ogtihiin waa mool ganacsi oo ganacsato Soomaaliyeed ay ka hirgeliyeen magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. haddaba dhammaan 10kan goobood waxa dadka Soomaaliyeed looga digay in ay ka dheeraadaan dhammaantood oo u badan hoteelo. waxa la soo sheegayaa in ay yihiin kuwa talada madaxweynaha hadda xilka ka haya Xasan Sheekh Maxamuud in ay qaateen oo ah qofkii ururka argagixisada ah siiya lacagaha baadda ah ay qaataan in dawladdu ay u aragto in ay yihiin dad dambiilayaal ah. dhammaan hoteeladan iyo waliba moolkan Xayaad waxa iska leh dad awood kul dhex leh dawladda hadda ka jirta dalkeena Soomaaliya. haddaba intaas kadib waxaan rabaa in shacabka Soomaaliyeed hal mid oo muhiim ah aan halkan kula wadaago. sida aad la wada socotaan gabar Ikhra lagu magacaabo Allah u naxariistay qaraxii koowaad markii uu daraad dhacay waxa ay ka soo carartay gurigeeda. qaraxii koowaad waxa ku geeriyootay hooyadeed laakiin isla qaraxii labaad marka uu dhacay iyada oo goobta ku sugan ayay ku geeriyootay. sidoo kale waxa jira nin isagana sargaal ahaa oo loo sheegay rag saaxiibadiisa in ay ku jiraan ama ku dhaawacmeen qaraxii koowaad. isla asagii oo gaarigiisa soo qaatay waxa uu la kulmay qaraxii labaad halkaasi ayuuna ku naf beelay inkastoo labadii wiil ee u soo cararayna ay hadda nool yihiin. haddaba Ilaahay ha u naxariisto dhammaan dadkii halkaasi ku dhintay. Ilaahayna ha bogsiyo kuwa ku soo waxyeeloobay. laakiin waxaan idinkaga digayaa in idinan ku cararin goobaha qaraxyadu ka dhaco muddo dhowr daqiiqo ah.
maxaa yeelay horta qofka haddii in uu dhinto loo qoray cid ka hor istaagi karta ma laha. laakiin waxaan xasuustaa yaraantaydii aniga oo degan xaafadda loo yaqaano Buluxubey in aeroboorka hoobiyo lagu garaaci jiray. xaafadaha aeroboorka ka sukeeya waxaa jirtay mararka qaar in hoobiyo uu ku dhaco midkii koowaad markuu ku dhacana oo ay dadku ku soo hoomaan guriga ama ku soo cararaan iyaga oo raba in ay waxa dhacay arkaan, sidoo kalena isku dayaya dadka ku waxyeeloobay ee ku dhaawacmay inay qaadaan. isla daqiiqadii waxaa lagu soo celin jiray hoobiyo labaad, halkaasina dadku ay ku basbeeli jireen. ilaahay ayaa haya ammaanka, laakiin waxaan idin sheegayaa in goobaha qaraxyada uu ka dhaco aad iskaga fogaataan muddo dhowr daqiiqo ah. micno ma samaynayso haddii aad tiraahdo qof baa iiga jiro dhiigbax u dhimanaya. waxaa laga yaabaa in laftirkaaga sida dadkii horeyba aad hore u sii raacdo. intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. adigana maxaa ay kula tahay taladaada in qarax haddii uu dhaco dadku ay ku cararaan? sideena u aragtaa taladaas aan siiyey dadkeena Soomaaliyeed? mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leeyahay ilaahay ha u naxariisto dadkii ku naf waayay, kuwa dhaawaca ahna ilaahay ha bogsiiyo. anigu waa Burhaan Cali, halkaana Burhaan Janaal.